kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamida madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si cad kaga guuleystay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo naftirkooda qiray in laga adkaaday iyo filla Soomaaliya oo soo bandhigtay dabinka ay ku dhaceen mucaaradka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka oo fariin culus u diray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland xilli ra'iisul wasaare Roble uu sabtida ku wajahan yahay magaalada Garowe haddaba miyuu ra'iisul wasaare Roble qorsheynaya in uu si wada jir ah ula kulmo Saciidan iyo Axmed Madoobe xog laga helay ujeedka rasmiga ah ee mucaaradka ka leeyihiin qayladhaanta doorashada iyo cidda u daran ra'iisul wasaare Roble iyo maamul goboleedyada oo la ogaaday wararkan kalena waxaa kamida madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo kulamo siyaasadeed iyo olole xoog leh ka bilaabay magaalada Muqdisho oo uu dib ugu soo laabtay iyo wararka sheegaya in lafta gareen uu u sharaxan yahay xilka gudoomiyaha golaha shacabka oo xoogeystay iyo Mareykanka oo digniin kama dambaysa u diray diyaaradaha caalamiga ah ee duulimaadyada ku taga magaalada Addis Ababa iyo Ethiopia oo dhibsatay qalqalgelinta uu wado Mareykanka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax Jimcaha 19 bisha 12 ee November sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaadada booliska dalka inagoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara ku mahadsantiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin in ku bilowno wararkan Jimco wanaagsan marka hore ayaan idin leenahay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa la sheegay in uu si cad kaga guuleystay siyaasiyiinta mucaaradka oo naftirkooda qiray in laga adkaaday arintan ayaa loo daliishaday in mucaaradka mar waliba ay ku dhagan yihiin isla markaana ay cambaareynayaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo ay ku eedeynayaan in uu muddo kororsi dadban isagu wado isla markaana uusan dooneynin in doorasho dalka ay ka dhacdo haddaba waxaa jirta in filla Soomaaliya ay shaacisay in madaxweynaha doorashooyinkii uu iska wareejiyay wax markaasi hadda ku dhow sanad isla markaana arimahaas loo xil saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda balse arintan ay u muuqato mid markaasi mucaaradka ay isaga dhagayaan madaxweynaha balse madaxweynuhu uu markaas u muuqdo mid ka guuleystay siyaasiyiinta mucaaradka ah filla Soomaaliya ayaa sheegtay in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay iyagu ku doodeenin wax markaasi micno leh isla markaana kaliya ay iska dhaleeceynayaan madaxweyne Farmaajo oo ay kaliya ka soo horjeedaan in uu markaasi sii fadhiyo meesha dalka looga arrimiyo ee filla Soomaaliya balse arintaasi isagu uu guul ka gaaray isla markaana uu fadhiyo wax markaasi ka badan sanad muddadiisii sharciga ahayd marka laga soo tago madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hore isaga wareejiyay arimaha doorashooyinka waxa uu u xil saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble arintaasi walaac badan ayay ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa markaa wixii ka dambeeyay la saftay ra'iisul wasaare Roble balse haddana mar kale ka furteen waxaana muuqata in meel loo raaco aysan jirin siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu qayladhaantii ay ka dhamaatay xalayta waxay soo saareen war markaasi ay kaga hadlayaan dib u dhaca doorashooyinka iyo in dalka muddo kororsi dadban markaasi uu ku jiro waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ay ku heshiiyeen in muddo kororsi dadban dalka markaasi la sii geliyo isla markaana aysan cadeyn qorshaha la doonayo in dalka doorasho looga hirgeliyo si kastaba arimaha doorashooyinka ayaa waxa markaasi xoog saaraya oo ku howlan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo isagu wada dadaaladii ugu dambeeyay oo uu ku xalinayo tabashooyinka iyo sidoo kale arimaha doorashooyinka la xiriira waa xaga qaybaha hore ee wararkeena ayaad markaa la socotaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa ay wali ku sugan yihiin magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland xalayto waxa madaxweyne Saciidani uu saaxiibkiisa siyaasadeed ee Madoobe u sameeyay casho sharaf loogu dhex sameeyay madaxtooyada Puntland waxaana ka soo qayb galay dad yow markaa kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen dadka ugu sasareeya madaxda maamulka Puntland sida madaxweynaha iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka ku-xigeenka madaxweynaha iyo sidoo kale marti sharaf kale oo kulankaasi lagu casuumay haddaba xogo aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya
uu isagu fariin u diray madaxweynayaasha Siciid Dani iyo Axmed Madoobe isla markaana la qorsheeyay in Garowe uu tago. Injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ayaa lagu wadaa in Sabtida uu tago magaalada Garowe, waxaana la sheegay in uu ka codsaday labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland in aysan kala tagin inta uu ka imaanayo magaalada Garowe si ay shir wada jir ah u yeeshaan Siciid Dani, Axmed Madoobe iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa ku sii sugnaan doona sida xogaha aynu ku helnay magaalada Garowe inta uu ka imaanayo ra'iisul wasaare Roble, waxaana lagu wadaa in ra'iisul wasaaruhu shir gaar ah oo xasaasi ah waliba uu la yeesho labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland, kuwa oo iyagu ah garab siyaasadeed oo markaa aad u xoogan. shirka ayaa sida wararku sheegayaan looga hadlaya arrimaha ku saabsan doorashada, gaar ahaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana ra'iisul wasaaruhu uu wataa qorshe ka duwan midka ay wataan Siciid Dani iyo Axmed Madoobe, isla markaana waxaa la qorsheeyay in ra'iisul wasaaruhu uu ka soo horjeesto damac kasta oo ay wadaan labadaasi hogaamiye. wararka ku soo kordha wararkana kale ayaan ku soo gudbin doonaa. markaana siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaa markaasi la ogaaday cidda u daran ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale maamul goboleedyada markii markaasi cabashooyin xoog leh ay soo gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu doorashada kaga hadlaya. inkastoo ay doorashadu daahday, haddana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu muuqdaa in awoodiisa dhan uu isugu geeyay in uu ka dhabeeyo in doorasho dalka laga qabto. mucaaradka oo si weyn uga careysan in doorashadu daahday, dhinaca kalena laga aaminsan yahay inay dhaqaale la'aan ku dhacday, ayaa hadda ka fakaraya inay abuuraan mawjad cusub iyo qalqal amni. in uu gaabis doorasho jiro waa muuqataa, dhinac kalese waxaa la dafiri karin inay doorashadii socoto. aqalkii sare lasoo doortay golihii shacabka ayaa sidoo kale 2 xubnood laga doortay, halka kuwa kale kuraastooda la shaaciyey in doorashadooda ay dhacayso. toddobaadkan gudihiisa waxaa la iclaamiyey doorashada 9 kursi. ra'iisul wasaare Roble ayaa kala hadlay maamulka Galmudug inay doorashada markaasi dadejiyaan. tan iyo markii uu soo baxay qorshaha cusub ee midowga murashaxiinta mucaaradka, su-aasha ugu badan ee la isweydiinayo waa cidda ay mucaaradka u socdaan, ma ra'iisul wasaaraha mase madaxda maamul goboleedyada. ra'iisul wasaare Roble waxa uu gacan buuxda ku leeyahay oo xafiiskiisa si dhow ula falgala doorashada gobolada waqooyi, si fudud ayuuna aqalkoodii sare ku qabtay. doorashadoodii golaha shacabka waa bilaabatay, waxaana la sheegaya in uu ra'iisul wasaare Roble uu rabo in 3 toddobaad ee soo socota gudahood uu ku soo afjaro doorashada kuraasta reer waqooyiga. geesta kale maamul goboleedyada doorka ra'iisul wasaare Roble waa kaliya cadaadis, waxaana la rumaysan yahay in safarkiisa dhuusamareeb uu ka mid yahay cadaadiska uu ku doonayo in la dedejiyo. waxaa laga wada dharagsan yahay in cidda doorashada ku fadhisa diidan in ay tahay maamul goboleedyada oo iyagu arintaasi si weyn gadaal uga riixaya. haddaba mucaaradka waa ay ku wareersan yihiin cidda markaasi u daran labada dhinac ee ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale maamul goboleedyada. qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isagu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa waxa uu magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka bilaabay kulamo siyaasadeed iyo sidoo kale olole xoog leh oo la xiriira arrimaha doorashooyinka. dhinaca kale waxaa xoogeysanaya wararka markaasi sheegaya in madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu yahay murashax u taagan qabashada kursiga guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, taasi oo jirto in filla Soomaaliya ay si weyn ugu taageerayso. waxaa laga dhaadhiciyay ninka la yiraahdo Laftagareen in uu markaasi isku soo sharaxo xilka guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, isla markaana xildhibaano isaga taageersan uu ka soo saarto maamulkiisa. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa digniin adag ka soo saaray duulimaadyada caalamiga ah ee taga magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. digniinta Mareykanka ayaa ku saabsan in diyaaradaha ka howlgala garoonka Bole International ee magaalada Addis Ababa oo ah kan ugu mashquulka badan Afrika ay la kulmi karaan halis hubka lidka diyaaradaha ee dhulka laga rido ama garbaha laga qaato, waxaana ay ka suurto gashaa arrintaasi kooxaha TPLF oo kusoo dhawaaday caasimadda Ethiopia. arrintan
oo la talin ahayd waxay kasoo baxday maamulka duulimaadka federaalka Mareykanka waxaana la soo saaray Arbacadii waxaana lagu sheegay in dagaalada ka socda dalka Ethiopia ay halis gelin karaan duulimaadyada rayidka ah. Mareykanka ayaa dhowaan ku booriyay muwaadiniintiisa ku sugan Ethiopia in ay degdeg uga baxaan wuxuuna meesha ka saaray in Ethiopia ka dhici doonto daadgureen la mid ah tii ka dhacday dalka Afghanistan. garoonka caalamiga ah ee Addis Ababa ayaa ah xudunta ugu markaasi mashquulka badan ee diyaaradaha ee geeska Afrika iyo waliba sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee la yiraahdo Ethiopian Airlines. sidoo kale xukuumadda Addis Ababa ayaa iyaduna dhibsatay qalqalgelinta uu wado Mareykanka ee ku saabsan duulimaadyada ee magaaladaasi. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tani warkaan war lamid ah intaanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.